Asalaamu calaykum. Qaybta hore waxay inoo mareysay inaan diyaarino design-ka. Marka hadda qaybtan waxaan sameyneynaa dhismaha ama functionality oo noo qaban lahay inaan soo gelino, aan deleedi karno, sidoo kalena aan save garay karno. Marka saddexdan function waxaa inoo qaban doonto JavaScript-ga. Marka hore waxaan kusoo xirinaynaa JavaScript-geena. Meeshaan waxaa laga rabaa inay ahaato border box. Border uu tagna cashirkii hore. So box ku darso. Marka waxaan kusoo xirinaynaa JavaScript falkeena. Sidaan wada ognahay JavaScript-ga waxaa fiican aan dhahnay in lagu soo xiro page-ka qaybtiisa hoose si website-kaada uusan u noqonin culeys. So waan naqaanaa tag lagu soo geliyo JavaScript-ga oo script tag ah. src-gan waxaa waaye file location-ku sheegaya. Filekeena FJS waaye. So just hadda waan kusoo xirina filekeena. Midda koowaad aan ka shaqeynayna waxay tahay input-kan wixii la soo geliyay inay meeshaan soo galaan. So marka waxaan qabsanaynaa reference-ga oo input-kan waan naqaanaa waxaa waaye form-kan oo add form-ka ah waaye. So marka JavaScript-ka ka qabsanaynaa waxaan iskala bixinaa add form document query selector. Formku wuxuu ahay id oo ahay so wuxuuna ahay add form. So markaad filekeena waa haysanaa add formka marka waxaan ku xirinaynaa event listener oo markii userka uu soo submit gareeyo inaan xogta helno. So marka waxaan ku xiraynaa submit then event-gaan ka helaynaa oo ah then waxaan rangareynaynaa arrow function waaye. So marka hore formka wuxuu default u leeyahay markii uu submit la yiraahdo ama enter la taabto in uu page-ka refresh gareynayo. Sida hadda arki karana meeshan kor ugu jeedid meeshan kor hadda fiir document ku qoran tahay page-ka uu refresh gareysmaya. Formka by default saas u leeyahay. Marka midda sida uu hortagno waxaan isticmaalaynaa function naga buuxda gareynayo inuu noo sameeyo refreshment-gaas. So marka hadda function-keena ma sameyn doono wax oo marka enter taabano wax refreshment ah ma sameyn doono. Then midda kale u baahannahay waxay tahay inaan helno userka wuxuu inta soo geliyay marka hore inaan helno. So marka laba mid ku heli karnaa inaan input-kan caadi u qabsano ama waxaa haysanaa formka dhamma haysanaa marka formkaas ayaa ka eegaynaa input-keena. So sidoo kale input-ka wuxuu leeyahay name uu leeyahay item la yiraahdo. So si aan marka hore console ku aragno waxaan dhihi karnaa console.log add formkii dot item oo ah magacii input-ka ahay dot value item dot value. So hadda marka haddii aan ka fiirino markaan save dhaan hadda console-keena F2 liftaa hadda Chrome isticmaalaysid. So console-ka waa kana waxaan soo gelin waxaan rabnaa inuu console kasoo muuqdo. Hadda JavaScript oo kale qoranay hadda noo soo muuqato waxaa inta gelinay meeshaan waan ka aragnay. Marka waxaan rabnaa inaan u soo daabacno halkan doomka aan soo gelino browser-ka. So midaas marka waxaan sameynaynaa function oo meeshaan hadda waa ku dhex sameyn karnaa. So si hadda function waxaan ugu sameynaynaa si hadhow mar kale haddii aan u baahno in aan si fudud u soo heli karno. Marka function-kan wuxuu noo sameynayaa HTML element ayuu noo sameynayaa. So marka function-kan waxaan iskala bixinaa magaca la yiraahdo HTML template. So marka function-kan waxaan ka dhiganaynaa arrow function. Marka midda koowaad aan rabnaa waxay tahay midda horta iska tiri karnaa. Marka waa aragnay in input-keena wixii lagu qoro qabsan karno. So midda koowaad waxay tahay inaan sameyno HTML template-ka. So waxaad taabanaysaa wanka ay dhinac ka xigtaa calaamadaas waaye oo labada kumo oo kor waaye labada kumo oo caadiga ah oo hoose maahan oo sidaan ah. So marka labadan kumo waxay ku taallaa wanka tab korkiisa ku taallaa. Markaad taabatid dan saas ay kugu furmaysaa. So midda marka waxaa ku dhex qoran kartaa HTML tags oo dhan ayaa ku dhex qoran kartaa uuna kaaga shaqeynaya qayb JavaScript-ga. So aniga midda aan rabnaa waxay tahay in file kala soo geliyo uu listigan noqdo uu class-kan trash-kan qaato si uu u yeesho calaamad delete. So listigan inaan qaadanaynaa
copy aa dhahanaynaa listiga. So marka halkan waan ku paste garaysanaynaa. Then waxaan rabnaa si uu hoodkan noogu qurxanaado isku aadisanaynaa. Then waxaan rabnaa wixii oo meeshaan intuu magacan ka noqon lahaa waxaan rabnaa userka wuxuu meeshaan soo geliyo inuu magaca noqdo. So then meeshaan variable aan gashanaynaa parameter si functionka marka halkaas ugu cino aan usoo pass garayno inputka uu userka soo geliyo. So then waxaan iskaga baxsanaynaa to do iska dheh. So then waxaan rabnaa in meeshaan uu noqdo variable marka la soo gelinayo waxaan isticmaalaynaa dollar sign iyo curly brackets then magaca variableka. Hadda marka waxaan rabnaa kan waa listiga waa la soo gelinayo listiga waa marka waxaan soo qabanaynaa listigana soo qabsanaynaa oo ul-ka ah oo listiga guud ahaanba ku jiro. Marka consti waxaan iskaga baxsanaynaa listi. So document query selector so ul element caadi waa so sidiisa usoo qabsanaynaa. Dan waxaan oranaynaa listigaas inner html-kiisa haddaa equal dhahno macnaha daatada ku jirto dhan wuu ka daadinayaa midaan ku shubaya. Marka waxaan rabnaa mid ku jirtana inuu haayo midaan inuu ku shubo plus aa oranaynaa plus equal html template-kana rabnaa inaan ku shubno. So dan marka hadda functionkan hadda marka waa wacaynaa html template-ka. Marka hore horta waxaa ku shubanaynaa daatada inputka wixii qofku wuxuu soo geliyaa ayaa meel ku shubanaynaa. waan dhahan karno item consti item wuxuu la mid yahay formka dot itemka inputka ah dot value-ga ah oo userka wuxuu soo geliya ah. So marka itemkeena hadda marka waxaan kusoo pass garaynaynaa functionka marka inta ka wacno html template. So meeshaan wuxuu ka qaadanayaa hal parameter then meeshaan ka siinayna argumentigiisa oo item ah. So hadda markaa save dhahno hadda haddii aan tijaabino waana suurta magacyadan marka hore aan soo gelinay waxyar waxaan isku dayaynaa inaan kala duwanaysiino. So saddex baa ka rabnaa bes midaan kala haddaan rabno iska diladi karin ama haddaan rabno iyadoo meeshan oo taalo waraceeda leh aan ka bedelano. So exercise waa iska dheh. So markaad save dhahno inuu kala duwan yihiin intoodaba dan midda labaad aan kasii duwan. So coffee iska dheh. So marka hadda haddii aan hadda javascript oo kale hadda gelinay ama css hadda u qaatay sidoo kale iconkana waa wataa oo meeshaan uu sameynay table template oo dhammaystiran. So sideeda loogu daray inner html-kiisa oo ul-ka ahay listiga ku qoran ul-keena waa kana oo meesha aan kaga soo qabsanay. So marka hadda midda kale hadda inoo dhimanaa waxay tahay hadda meesha waxaan kaga qoranaynaa commentia meesha aan ku qoranaynaa si aan dhow koodka u fahanno adding template. So hadda marka meeshaan waxaa kaga qoranaynaa commenti ah in delete inay tahay. So marka hadda waxaan rabnaa meeshaan delete markii la taabto inuu delete ma rabnaa midkaan. So marka deletekan waxaa u baahannahay marka ul-kan ama inaan ku xirno event listener inaan ku xirno oo click ah. So marka hadda waa haystanaa listiga waa haysanaa oo listigaasaan noo haya variablekaas listiga u taagan elementigan ul-ka ah. So marka listigaasa waxaan ku xiraynaa event listener listigaasaan ku xiranaynaa event listener aan ku xiranaynaa oo waxaan ku xiranaynaa event listener oo waxaan ku xiranaynaa click. So marka waxyar shaashada ku yara darsana listenerkan click marka ku xirano dan arrow functionkeennii ayaan gudaha u gelaynaa. So marka waxaan rabnaa markii kan event listenerka inaan kan ku xirin oo aan rabno inaan ku xirno iconkan bes inaan ku xirnaa rabnaa. Marka iconkan waxaan ku kala saaraynaa marka decision oo if statement ku kala saaraynaa.
if statementiga waxaa dhahaynaa meeshaan horta inaan ku xirano ifintigeena inaan qabsano marka hore. So ifinti dot target aan leenahay oo ifinto targetka marka labadaba way tahay marka oo waxaa waaye children gudaha. So ifinto class listiga ku kala saaraynaa oo ah midkan wuxuu ugu duwan yahay class listi uu wuxuu wataa fa ah, halka midkan kalena isbaankan uusan waxba wadin class list waxba uusan wadin, midkan wuxuu wataa fa. marka waxaan leenahay clickan waxaa ku xirtaa macnaha classka fa ga wixii wata labis oo waxa wato iconkeena wato fa classka ah. So hataa marka hore aan console kusoo bandhigano ifinti targetka waxay u taagan tahay console.log target targetka object waaye oo ifintiga iiga wato. So marka hadda console-ka eegno oo aan meeshan click ku siino waxaa noo soo baxayo listigii. So listiga marka waxaa ku jirto labadaba isbaanka oo ah qoraalka oo userka soo gashanayo iyo ayadan oo ah iconka oo rabno inaan listiga ku xirno. marka anaga waxaan rabnaa bas iconkan inaan ku xirno clickda si uu u daleedmo. So marka waxaan sameynaynaa if statement waxaan leenahay marka in dot targetku dot class listigiisa dot contain uu ku jiro contains uu ku jiro fa macnaha then koodkan gudaha loo soo gudbi doono markay kan lagu dhufto lebes. marka waxaan rabnaa inaa listiga dhan badaleedno markii kan lagu dhufto inuu listiga dhan daleedmo. marka waxaan leenahay dot targetka dot parentigiisa parent elementiga rabnaa because iconkan delete wuxuu ku dhex jiraa listiga dhan ku dhex jiraa. marka midkan waa jaldareenka waaye parent elementigana midkaanuu noqonaya gudaha ugu jiro. marka waxaa daleed maayo isbaankii macalaa taagii macalaa listigii dhammaaya wada baxaya. marka waxaan rabnaa inaan listigaas dhanba aan remove gareyno. So marka hadda safe dhahno meeshaan haddaan ku dhufano ma shaqeynayo clickeena, balse markaan delete daabano elementiga dhan buu wada baxaya. So hadda qaybtii delete aheedna waan sameynay. midda kaloo hadda inoo dhimana waxay tahay inaan sameyno qaybta searchiga ah oo adinkana uu noo shaqeynayo. hadda haddaan gelino html uu soo qabanayo. midda kale meeshaan ugu tagna inputka waxay tahay marka hadda qorno html markaan qorno waa enter dhahno wiilo qoraalkaa qornay meesha ayuu noogu sii jiraya. marka waxaan rabnaa anaga markii wax qornaba inuu sii daleedaa rabnaa. hadda haddii aan dhahno javascript haddana hadda wiilo meesha ku qorantay waxaan rabnaa marka waxa inta ku qorno marka inta soo galaan inta kasii baxaan isla markiiba. marka waxaan tegaynaa taageena meeshan aan ugu wacinaa functionka. then midda kalena waxay tahay haddii xataa iyadoo eber hadda gelino oo enter aan dhahno eberta xataa wuu soo gelinaya. marka waxaan rabnaa iyadan ebertaas inaan ka diidno oo inputka hadduu eber yahay uusan shaqeynin rabnaa. marka if statement aan ku xireynaa midkan inta aanan wicin html elementiga functionka noo sameynayo waxaan rabnaa inaan if statement ku xirino. if statementkan horta waxaan leenahay itemka marka hore in lengthkiisa uu wax lahaadaa. lengthka hadda markaan dhahno if dot lengthku by default markuu waxba ku jirin zero waaye. marka lengthka hadduu zero yahay if statement zero waxay u taqaanaa false oo looma gudbaya koodkan, balse hadduu zero ka wen yahay waa hal xaraf xitaa aan qorno lengthka true noqonaya if statementiga true u qaadanaysaa then waa loo soo gudbaya kood gudaha. so marka hadda meeshaan ka wacanaynaa functionkeena html template-ka noo sameynayo itemkana meeshaan ka siinayna. so marka hadda haddii aan eber gelino xataa ma shaqeynayo inputkeena. midda kalena waxay tahay waxaan dhahnay inaan dileedna rabnaa inputkan waxaan ku qorno inaan hor kasii dileedna rabnaa. dad axmed qortid wuxuu wada diido in wax lasoo geliyo xataa waxaan qaladnay item dot length itemka kana item so hadda haddii aan fiirino axmed yes hadda uu shaqeynaya. marka so marka waxaan rabnaa inuu sii dileedma rabnaa. waxaan sameyneynaa inaan dhahno waxaa foomka dhanbu ayaa reset dhahenaa oo wixii foomkaas ku jiro wixii input oo foomkaas leeyahay oo dhan wuu wada reset gareynaya.
so marka functionkan reset wuxuu naga saacidayaa macnaha in uu tirtiro everything oo formkaas ku jira inuu clear gareeyo. so marka hadda markaan save dhahno haddii aan qorno axmed, haddii aan qorno abuubkar oo kaleeto wuu sii tirtirayaa isla markiiba. marka hadda midda inoo dhimana waxay tahay qaybta sirjiga. so meeshan waxaan kaga qoranaynaa filtering oo aan kala shaandeynayna userka wuxuu sirji garaynaya oo aan rabno inaan usoo bandhigna keliya wuxuu sirjiga inta ku qoro waxay iska leeyihiin. so marka filteringkeena waxaa sameynaynaa marka hore inaan qabsano, waxaa dhaanay inaan qabsano sirji inputkan. marka sirji inputkan waa kana, waa formka ugu koreeya waaye, wuxuu ku jiraa classkan parentiis waxa waa sirji box. marka waxaa rabnaa marka inputkan keliya inaan qabsanaa rabnaa. marka waxaan leenahay marka hore waxaa soo sheeganaynaa specific inaan usoo sheegnaa rabnaa, waxaa yeele meesha 2 input ku jirto iyo 2 form. marka si aysan iskaga dhex qasmin, hadda meeshaan form ka qabsano by automatically javascriptiga waxay soo qabsanaysaa formka u horeeya oo form bis markaan dhahno marka hore sirja u baxsanaynaa inputka aan rabno inaan qabsano document selector marka hore aan ka sagsana koodka then hadda haddii aan dhahno form bis haddii aan dhahno hadda wuxuu soo qabsanayaa formka ugu horeeya oo ah formkan. marka waxaan iska dhahanaynaa inaan u sheegno marka hore sirji boxiska then formka guda jiro then waxaan leenahay inputkiisa. so marka hadda saa waxaa ku haysanaa inputkaasaan ku haysanaa. so marka waxaan rabnaa inputkaas inaan ku xirno isagana event listener inaan ku xirnaa rabnaa. so event listenerkan wuu ka duwanaan doonaa kuwii hore. so event listener wuxuu noqon doonaa key up oo mar walba oo userka keyboardkiisa taabtaa functionkan ayaa laynoo ran garaynaya. so isagana sidoo kale si aan sirjibsa ka rabnaa midkan sama waana form. so haddaa doono waa iska prevent gareyn karnaa wixii default isagana waa ka prevent gareyn karnaa. so marka waxaan rabnaa marka hore userka wuxuu inta soo geliyaaba inaa markuu userka key taabtaa, markuu uu xaraf taabtaa oo kale oo keyboardka ah functionkan ayaa laynoo ran garaynaya. so marka hore waxaa meel ku shubanaynaa userka wuxuu soo qoro oo letter ah xaraf ba hadduu soo qoro functionkan wuu inoo kacaya. so wuxuu la mid yaha dhahnay sirji.value oo markaan inputkaaga caadi u haysanaa. marka sirji.value waa leenahay. so marka hadda haddii aan console ku fiirino si aan u aragno letter oo aan save dhahno, hadda markaa F12 taabano oo consolekeena inoo soo baxo wax yar shaashada yara qaadanayna. so markasta meesha markaa xaraf ku qorno isla marka uu soo muuqanaya, hadda uu sii qormaya mar kastaba aan ku sii qorno consoleka uu noogu soo bandhigaa. markasta oo xaraf taabana dhahnay xaraf markaa taabatidbo functionkeena kacayo userka wuxuu soo geliyaan waxaa ku shubanay letterkana ku shubanay variablekan dan isla markiiba soo bandhigna. so key upkan marka functionkan maxaa la event listener key up waxa waa markasta uu userka taabto keyboardka markasta sida uu jeedo maxaa la tahay consoleka uu soo bandhigmaya markasta aan taabano keyboardka. then marka waxaan rabnaa function filteringka noo sameeyo ayaan sameysanaynaa si koodkeena uu hadhow reusable u noqon karo mid markale la isticmaali karo functionkaas oo noo sameynaya filteringkaas. so functionkan waxaa iskala baxaynaa filtering aan iskala baxaynaa then functionkeena wuxuu lahaan doonaa hal parameter oo ah userka wuxuu soo geliyo item aan iskala baxana hadda then aanu functionkeena gudaha usoo galnay. midda koowaad rabnaa waxay tahay waxaa laba bardhigana waxa waaye listigan inuu lahaado wixii inta lagu soo qoraa in listiga wixii meeshan ay kaga mid yihiin marka inta lasoo geliyo wixii ah oo meeshan ku jiro dhan in loo soo bandhigo wix kale laga qariya rabnaa anaga. midda koowaadna waxaa isticmaalana waxay tahay array methods
so array hadda waxa waaye marka hore horta aan soo bandhigano waxaan rabnaa listiga. hadda listiga horta marka hore aan soo bandhigano listigu waa ul tag oo dhan. so marka hadda xaraf qoran oo kaleento functionka marka hore inta kaga wacno filtering. so marka functionka waxaa dhahan wuxuu u baahan yahay hal variable ama hal parameter oo soo qaadanayo. so marka hadda marka xaraf qoran oo kaleento ul ka dhan ayuu noo soo qaadaya. marka annaga waxaa rabnaa ul ka listiga ku jira rabnaa. marka waxaa leenahay list.children. hadda markaa xaraf taabano waxaa ku qoran meeshaan html collection. marka html collectionkan looma isticmaali karo array methods sida filtering iyo for each iyo looma isticmaali karo. so marka hore waxaa ka dhiganaynaa array oo bedelaynaa array dot from list dot children. so marka hadda haddii aan hadda console dhahna xataa consoleka hadda aan kusoo bandhigno hadda haddii aan soo bandhigno marka hore hadda meeshan waxaa ku qoran html collection. laakiin hadda markaa safe dhahno oo aan taabano hal xaraf markaa taabano wuxuu noqday array caadi uu noqday oo html collectionka uu ka tirsan. hadda haddii aan fiirino prototypeka waa u isticmaali karnaa functionska oo dhan filtering iyo for each iyo dhammaan waa u isticmaali karnaa. so marka waxyaraan soo minmaasgareysan. marka hadda waxaan rabnaa in isla markiiba guda galno filteringkeena. so marka hadda intaan haddii inooga dhigtay array waxaa usii isticmaali karnaa filterinka. so meesha haddii aad kusoo qorno filterinka uu dheeraanaya. marka waxaa qurux badan in sadarka hoostiisa kaga qoran. so waxaan isticmaalaynaa marka filter aan isticmaalaynaa tin to-do asiina waxaa loo soo gudbaya array functionkeena. so marka waxaa rabnaa annaga inuu noo soo celiyo waxaa rabnaa marka wixii hadda haddii inta lagu qoro shopping oo kale markii la sirji gareeyo wixii aan shopping ahayn in laka qariya rabnaa. marka waxaa hadda leenahay marka to-do-gan waxa waaye filteringkan wuxuu gudaha u gelayaa listi walba ayuu one by one usoo maraya. for loop camal waaye filteringkan method waaye. marka for loop camal ayuu listiga jaldareenkiisa oo listis gudaha noogu jiro ayuu wuxuu mid mid usoo filter gareynayaa. marka mid kastaaba uu dul maraayo waxa waaye to-do-gan uu noqonaya. marka to-do waxaan leenahay dot text input text contentka ku jiro haddii contains ama include aan leenahay markaan includes ay ku jirto itemkan waxa waaye letterka uu userka inta uu soo dhibni waaye itemkan. marka waxaan leenahay item haddii macnaha inta ku qorno marka wax laga dhex raadiyaa text contentigan uu listigan text contentigiisa ayaa wax laga dhex raadinayaa xarafkaas. so marka markii aan filterinka hadda saan ku sameynay wuxuu noo soo celinayaa marka wixii xarafka marka inta gelin wixii inta ka watay noo soo celinaya. marka sidoo kale waxaan sameynaynaa kalaasaan ku qabanaynaa oo aan kalaaskaasna oo aan ku qarin doono wixii ayadaas lahayn. so iyadana waxaa usii isticmaalaynaa method kale oo la yiraahdo for each. marka sidoo kale for each tana iyadana waa filter oo kale waaye way dul maraysaa listiga ku jiro dhan sida anagoo isticmaalayna for loop oo kale. qofkii programmer u yaqaan oo fahmi karaa for loopka. so marka iyadana waxay leedahay arrow function oo gudaha usoo gelayna. marka waxaan rabnaa marka in wixii tan hadda waxay noo soo gudbinaysaa wixii includes wixii ay isleeyihiin itemka. marka annaga waxaan rabnaa wixiisan islahayn inaan qarino wixii ay isleedahana macnaha text contentkan iyo itemkan haddii isleeyihiin inaa dhaafanaa rabnaa oo sirjiga hadda markii inta lagu qoro kale wixii xaraf meeshan ku jiro in meeshooda ay ahaadaan wixii meeshan ku jirin in laga qariyaa rabnaa. marka meeshaan markaan tiraano not ay la mid tahay calaamadan oo one-ka waaye shifty one isla qabanaysaa not ayay u taagan tahay. waa logical operations oo kale midaan waxay u taagan tahay iyo si wada naqaano
calaamad tacjabtaana waxay u taagan tahay not. marka wixii inta lagu soo qoraa oo dhan falsi ka dhigaysaa. marka hadda markaa inta ka tirno waxay noqonaysaa, waxaa noo soo celisaa truga text contentigiisa haddii uu ku jiro itemka oo ah xarafka inta lagu qoraa. markii inta not la dhaho waxay noqonaysaa in aysan ku jirin xarafka meesha lagu qoraa, inuusan inta ku jirin ayay la mid noqonaysaa. so markuu midaan noo soo celiyo waxaa rabnaa aan ku qabano class list inaan siino, uu classkaas listigeena si idaska ah kaga qarin doono. so marka hore inaan aragnaa rabnaa inuu classka siinaa in kale. waxaan leenahay marka waxaa noo soo celisaa to do dot class listigiisa dot add waxaa siisa classkan c oo la yidhaahdo filtering. so marka hadda save dhahno oo aan consolekeena furano f12 then elementiga tegaynaa htmlka inaan caadi u aragnaa rabnaa iyadoo lagu daraayo class listigii. so marka listigeena waa kana afartan listiya hadda inoo qoran. so hadda marka aad taabano s oo kaleeto, marka hadda taabano labadana filterka aa lagu daray, labada dhexe oo labada dhexe wax sm wataan. midaan waxay wadataa stan ay wadataa extaas u dambeyso, midaan waxay wadataa estas. marka labadooda waa lagu daray. so marka waxaan rabnaa markii la tirana in filtering laga qaado. midaasna si aan u sameyna waxaan sameysanaynaa mid labaadaa sameysanaynaa filtering labaad iyadana midaas naga saacideysa. so midaan waxay kaga duwanaanaysaa meeshan aan not ka dhahnay yesaa ka dhahnaynaa, meeshaan add ka dhahnana waxaa ka dhahnaynaa remove. so markaa safe dhahno waa u nimaano ulkeena markaa hadda furano marka hore yara dheereysano. hadda markaa estaabano labadan filterinka waa lagu daray. so marka esta tirnana labadii filterinka waa laga qaaday. so marka waxaa sameysanaynaa classkaas filterinka ah si idaska ku dhex sameynaynaa. waxaan leenahay filtered inaan qarinaa rabnaa marka display nanaa dhehenaa. sidoo kale waxaan leenahay inuu important ay tahay stylinka wata xataa in la qariyo. so marka hadda markaa s taabano wixii aa s wadilin waa laga qariyay. markaa tirno waa inoo soo celinaa. tarafilna hadda rabnaa bis tarafilna waa kaas inoo soo qabatay. so haddii aa xaraf kamid a qaladno waana laka qarinayaa oo markaas isma lahaanayso. so hadda qof ayaa rabnaa sidaasoo inoo soo qabtay. marka sidoo kale waxaan rabnaa in hadda functionalitygiisa hadda wuu shaqeynayaa. exercise hadda waa tiri karnaa, travelinka waa tiri karnaa, oo kusoo darsan karnaa dhahday sidoo kale dhahna kusoo darsan karnaa, waa deleedin karnaa, waa siirji gareysan karnaa. waa showbiz markaa siirji gareyno showbiz oo noo soo qabanaya. kafeyga markaa bis siirji gareyno kafeyga bis oo noo soo qabanaya. so marka hadda mid kale rabnaa waxay tahay inuu ahaado responsive inuu ahaado, oo waxaa ku yara baraadkeysanaynaa sisaska u nimaanaynaa then media query ku xiraynaa. so marka waxaan leenahay access queryska at least 550 iska dhig bx. so marka hadda waxaan rabnaa marka in keliya meesha wax ka bedelina waxay tahay in magaca applicationkeena uu kor ahaado, siirjigeenana uu hoos yimaado. so marka waxay ku jireen waxay ku dhex jireen headerkeena. marka waxaan qabsanaynaa tagga headerka ahay. so tagga headerka ahay wuxuu ahay macnaha fluxes waa kana headerkeena fluxes oo ahay. marka keliya mid wax ka bedelaynaa waxay tahay fluxes directionka ayaa waxaa ka dhiganaynaa inuu ahaado by column. hadda waa by row waaye. so fluxes wuu yahay. marka waxaan leenahay fluxes direction inuu ahaado by column. waad markaa safe dhahno so marka hadda markaa furano just sana isku dul yaallaa. so marka waxaan rabnaa in
xkan qaladna qaabka u qornay waa xp dhahne. So hadda markaa save dhahno labadoodii hadda way isdul fuuleen. So marka waxaa kaloo rabnaa in justify content inay center ahaato, sidoo kale ligni timeskana uu center ahaado. So hadda si qurux badan ay dhexda u tageen. Marka waxaan rabnaa wax yar uu baadhin inuu labadooda u dhexeeyo si kala durkaan xoogaa h1ka qabsanayna headerka h1kiisa in marginkiisa hoose inuu 3bx hoos iskaga durkayo. So marka hadda okay waaye. So marka hadda my telephone markaa isticmaalayna saas usoo geli karnaa inta markaa taabana. Sidoo kale waa dileedi karnaa. Sidoo kalena sirji marka hore data badanaa soo gashanaynaa mumkin kala hadda play game hadda dhahne waa dileedi karnaa dhaan. Sidoo kale sirjigna noo shaqeynayo b markaa taaban hadda labadan b ku jirta labadooda bisoo noo soo qabatay l markaa taabana play kaligeed waaye. So sirjig saas u shaqeynaya marka everything hadda okay waaye. Intaanu ku ogiyaa projectgeena. Wassalaamu calaykum.